بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ummadda islaamka dhamaantood meel kasta ay joogaan khaasatan dadka Soomaaliyeed af Soomaaliya ku hadla waxaan la soconaa waayahan dambe waxaa soo kordhay cudur safmar ah oo wadamada caalamka dhamaan ay ka qaylinayaan marka insha Allah biidnil kariim waxaan codsi yar anigu soo jeedin lahay wadada ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed ay u gudbi karaan arintaas inay tahay koow Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan u laabano oo Ilaahay u toobad keeno ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بالتوبة بلاء إدوات سومدكتو إلا وحي كتما دا ذنب لقلي وحانا الوقرية لا توبة الله سبحانه وتعالى الله بتو مركزتك المسلمين تا أما الصومالي دا ملك سيجوغان إله سبحانه وتعالى وإن الله بتان ومدي وحاويان غفل بإله أتوبتك سبحانه وتعالى وحاكرا مهم إن إله سبحانه وتعالى برينو oo qof kasta xilliga uu salaada waajibka tukada ama salaada sunnada ah iyo habeenkii xilliga dambe quraanka uu akhristo Ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saarto Ilaahay bariyo musiibo kasta dhacda waxa anagu kasbana weeyaan uma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir musiibo kasta dhacda oo wax anagu aan gacmaheena ku kasbanay Ilaahayna in badan uu naga cafinaya waxaan ognahay Soomaalidu inay isu dilaan qabiil arrimaha xun oo fara badan ay jiraan dhammaan waa in arrimahaas laga waanto waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu caroon lahay oo ciqaabkuna waa dhici lahaa waxaan kaloo soo jeedi lahay in lagu dadaalo xagga nadaafada islaamku waxa weeyaan waa nadaafad al-iimaan waxa la yiraahdaa an-nadaafatu nisfu al-iimaan nadaafadu waa iimaanka barkeed uma cadaalika dadka islaamka ah shan waqti bay tukadaan salaad kastana waa loo dahaaro qaataa dahaaro qaadashadu marka waa nadaafadii nooc kamid ah oo waxa la yiraahdaa dahaaradu xagga luqada Carabeed waxa lagu yiraahdaa an-nadaafatu marka qofka islaamka waa inuu diinta fartay markasta oo nadaafada ku dadaala waxa kale oo ah arimaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu caroon karo kamida laguna yeelay karo cudurka faafitaankiisa in la xiro isu imaatinada waxa weeyaan maakirta munkarka lagu sameeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala looga fogaan karo sida aroosyada dadka isugu imaanaya gabdho qaaqaawan oo dhar libis sharciya wadan iyo wiilal dhalinyaro ah ee cayaar iyo waxaan loo baahnayn sameynaya iyo goobaha kale lagu caweeyo intaba in la xiro ayaa muhiim ah maadaama Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noogu caroon karo laakiin meelaha cibaadada dadka inay ducada badiyaan masaajida qunuudka la badiyo alla bariga la badiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo toobad keena muhiim ah cudurkaani waa wax Ilaahay keena subhanahu wa ta'ala waa farin Allah subhanahu wa ta'ala uu dirayo oo dunuub la galay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nagu tusinayo ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إلهي سبحانه وتعالى وحليه وحان دانسينا عذاب كير او ادويده قفكه waa lagu ciqaabaya waxba la tusayaa abaaro iyo cudurro iyo colaado iyo waxba ruuxi ku dhacaya iyo jirooyin oo jirado laakiin arintaasi waa baraarujin iyo fariin waxa inta cadaabka weyn la gaarno aakhiro iyo adduunkii la isku ciqaabaya waxa arinta danta laga leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sheegay inay tahay in dadkaani soo laabtaan la'allam yarji'un oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keenan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo laabtaan arinta ayaa muhiim ah qofka muslimka marka waxa laga doonayaa inuu kalsooni fara badan muujiyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku kalsoonaado oo qadarta Ilaahay uu rumaysnaado maxaa yeelay arkaanta iimaanka waxa kamid ah qofku inuu qadarta rumaysan yahay qadarta Ilaahay marka hadii ay kugu dhacdo rumaysnaaw oo ku sabarka waxa weeyaan waa shay wanaagsan qofka hadii musiibo ku dhacdo oo sabro nimco fara badan iyo wanaag fara badan buu helayaa hada Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka sabrana wuxuu ugu bishaareeyay janno ay ugu bishaareeyay sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu bishaareeyay dadka sabra wuxuu waxa weeyaan u ballan qaaday inuu ajarkooda siinayo xisaab la'aan oo ajarkooda uu oofinayo xisaab la'aan rasuulkeena kaleey salaatu wa salaam wuxuu noo cadeeyay qofka mu'minka arintiisa inuu la cajabo la yaabay amran ajaban li amri almu'min ayu rasuulka kaleey salaatu wa salaam waxaan la yaabon la cajabay qofka mu'minka arintiisa arinta qofka mu'minka dhamaanteed waa khayr hadii dhibaato ku dhacdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu ugu sabraya oo dhibaatadii uu ku sabraya markaas ay khayr u noqonaysaa oo ajir buu ka helayaa hadii wanaag iyo khayr iyo nimco oo helana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu u shukrinaya markaas ay khayr u noqonaysaa marka dhamaanteen waxaan isu dardaarmaynaa inaan nadaafada ku dadaalno
inaan waxyaalaha ilaahay noogu caroonay subxaanahu wa tacaala la joojiyo sida dagaalada qabiilada hadda soomaalidu dhaqan aysan lahaa jirin baa la gaaro asbuucii lasoo dhaafay xataa dad meyd oo la gubayaan arkaynay waa arrin aad waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu caroon karo marka ilaahay subxaanahu wa tacala inaan u laabanan dhammaanteen isu dardaarmaynaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dariiqiisa aan qaadano nadaafadda aan ku dadaalno meelaha aan muhimka ahayna ilaahay subxaanahu wa tacala looga fogaanayo ama tajamucaadka ama isu imaatinka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uusa ka raaliyan lagu samaynayo waa in la joojiyo dadka awoodda ule ay joojiyaan oo waxa weeyaan arrimahaas si aad iyo aada looga feejignaado hadda waxa weeyaan aad iyo aad ay ugu mahadsantaha dowladda soomaaliya tilaabadii ay ka qaaday xeebta liida iyo meelihii lamidka ahay meelo badan oo meelaha lamida ayaa jira oo xumaantu ay banaanka iska taallo marka waxaan ka codsanaynaa inay joojiyaan meelaha waxa weeyaan manaakiirta lagu samaynayo oo gabdho iyo wiil dhalinyaro ay fisqi ku samaynayaan oo waxa weeyaan waxaan sharcigu ogoleyn ilaahi subxaanahu wa tacaala uusan raalli ka ahayn lagu samaynayo in laga fogaado dadkuna ilaahi subxaanahu wa tacaala ay ku xirmaan in badan oo dadka kamid a waxay aad u moodaan haddii musiiba timaado ama cudur yimaado cudurkaasi fawaa'id uu leeyahay inaad la yaabto ma ahan hadda cudurkan fawaa'idda uu leeyahay ee la sheegay waxaa kamid a waxaa yaraaday fuxshigii iyo zinadii ay yaraatay xataa dadkii gaalada ay samayn jiray waa ay joojiyeen maxaa yeele isma taaba kale waa la kala cararaya marka annaga haddaan islaam nahay haddana soomaali nahay waa inaan joojinaa waxyaalaha falalka xuxunka ah ee ilaahi subxaanahu wa tacala noogu caroon karo wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu